hambalyada ugu weyn meeshaan ku hayna waxay tahay brother aan leeyahay waxa waaye ninkan farmaajo la haayo dadku wuxuu u noqday laf dhoon gashi waxa waaye waxa la soo saaray caadi baraanka la soo dhigay wixii dadkiis qarinayno banaanka soo dhigeen maalmahan waxa iska soo daba dhacoy eedeyntii iyo canaantii maantana waxa waaye waxa gacanta la soo gashay faraha gacmaha si toos ah oo daas ka qaadis ka shiftay oo waxay tahay brother baraanka soo dhigtay soo matagtay dawladda Norway waan u jeedaan waan arki doontaan Soomaali badan oo dhihi doono Norway asxaab badan noo sameeyay anaga awal badan noo haysa Soomaali badan meeshaas ku haysa Soomaali badan ay meesheeda ku qaabishay Soomaali badan ayaa difaaci doono marka waka ayo dadkaan dhan brother waa idin sheegay mar hore bal hore sheegay brother dadkaan dhan hal weel ay ka dhaansadaan dadkaan dhan hal ceel wax ka cabaan brother xaraanta dadna xay ma aha Norway waxa ka galay nabadeena isweydii macaarado asxaabteeda la hadlaya saaxiibkayada kula hadlaya kursigeel kuwan kale meelaha joogo oo badantiin aad weydiiyo faa'iidada maanta Norway Soomaaliya kaga jirto ay u leedahay warka maxay tahay sheeg fargelintan oo gacanta ila soo gasho banaanka ah qac maxay tahay sheeg ay ka fadhiisaa tanteeda maxay tahay bas weydiismo waxa ka dambeeya ku sheega marka wax kale kama dambeyn waxa ka dambeysay nin Allah magaciisa Anwar Kharqash oo ah wakiil wasaarad oo hadda la buriyay wakiil wasaare oo hanjiri rufyaan oo hanjiri asalkiisa aan la garanayn wuxuu yahay asalkiisa yahuud ah ka saabaxay brother u tagay oo la sameeyay wada hadal dhil la gaaray oo dhahay Soomaali baashaan waa inaa ku adkaysaan arinta Soomaali wuxuu dhahay waa inaa gacmaha la gashaan ninkaas waa ninka Soomaaliya kala wado macna Maxamed bin Zaid la talihiisa qaaska ah oo ninkiisa wasiirka arrimaha dibadda ah markuu qasaayo kaas u diray danta Norway ka soo galayso maxay tahay hal isweydii karta malaha farmaajo fara u sheegay Nairobi sababta ay 3 sano ilaa 2 sano ay u dhigaysay arinta maxkamadda bil bisha ka dambeys bisha ka sii dambeys maxamed inay raadinaysa cadeemo inay raadsanaysa maxamed inay raadsanaysa proofyo daliil inay keensato proof inay keensato ma umaleynaysa maya wallahi halas inuu waxay sugaysa farmaajo intuu ka degto halas waxa la sugayay 8 Febraayo brother waxa la hay aw kaadino aqliga qabaan ma waa dad fikiraya ma ka horayaan ma Nairobiyaanka maxaa la haysaa xiliga waxay dhahayn farmaajo 8 deganaya ilaa 8 aw kaadino ilaa 8 abti aw kaadinayeen farmaajo wala sugay brother laakiin saaxiibkaaga as waqtiga ma dheereysanne ayaga u dheereeyay dadka soo dirsadeen waxa la yiri iyaha ka qayliyo balaash ma qayliyaan waxba ka qaylisay marka dadkan waxay u qaylinayeen taas waxay keentay sabab u noqotay doorashada dib u dhacdo ayaan sabab waha taas marka keentay farmaajo meesha uu sii fadhiyo taasana keentay intii la gaaro 15 oo Maarso maxkamadan ay sii socotay meesha la sugayay inay Soomaalida ka baxdo Kenya ayaa kiis ka baxay sameysay nawday farmaajo wareeji maay uu sii joogaya igana qor macaarado saaxiibkaygiyo dadka maanta arkaysa dani sida u qushucsanaa oo maleynaysa saaxiib oo igar dubaab ahay iga qor saaxiib in la xiro doono mar dhow dadku wala soo wareegna saaxiib goboladii waa furfuruna brother gobolada waa furfuruna meesha waxa sameeyrabna waa la baaqay hatta hadda ka horna waa la dhahay meesha magac madaxweyne waa tirtir rabnaa hal madaxweyne kaliya saaxiib hal madaxweyne oo galnaa brother weena soo socotaa sida la sheegay oo waar ku dhawaaqay no federalism brother anaga maanan kaysan fikradeyna meesan ahayn marka no more federalism no more qashin iqraac Soomaalnimo soo socotaa marka farmaajo waa loo tashanay Allah watee weel mo baana brother has wareerin Norway hadal gaalo hadalna macaarado maalin kasta magaciisa sameeysta maalbo mar waxa la baxdaan madal maan la baxa mudul maan la baxa mugdi maan la baxa badbaado maan la baxa qasaaro maryaaya cayaanka ah hadani ayaa maanta wuxuu yiri waxaan zoom kula sheekaystay safiirka Turkiga abu safiirka Turkiga sababta kula sheekaystay mataqaana maxay tahay albaabada ka soo xirmay Imaaraat Kenya maca Mareykan ninkii brother waxay qasab ku noqotay Turkiga inuu dhaho farmaajo la hadla please taasa la marooya ninka la hayna Cabdirashiid Janan maadaama uu soo dhiibay oo dawladdiisa oo la heshiiyay waxa la hortaan bal ku soo dhawow in kastoo ahaan nin dambiile ah laakiin saasay tahay waxa waaye qof kasta oo toobad keen waxa leena gacmo furan ku soo dhawow
nabadii nolol ha jirto Soomaaliya ha jirto ha noolaato ha israacdo axmedoobina brother godkiisa biyugu soo galay containerkaasna balan waa inuu noqdo xabsigiis taariikhdu soo celinaysa 1969 maxamed abshir hamaan iyo maxamed ibraahim cigaal sida lagu sameeyay leeyahay hayaab wasiir waare arab ina qabto wasiir waare mid ku xasuusiha wasiir waare adu xaatiri farmaajo waxa loo baahnaa ninka meelaha aan tagayno runtii walwalka iyo ragga ila jooga ka sheekeyn kara waxba la qarin maaye magaaladii xamar hadii laga wisuusay oo laga shakiyay oo la yiri cuntadeeda ha cunin oo waa sunba ku jirta oo waa lagu dilayaa ummad tarar ku jirta ma al-shabaab aan ka baqnaa mise filo Soomaaliya aan ka baqnaa horta wax nin leeyahay ciidamada ana iska leh ciidamadaydu yiri hadda tii u dambeysay wallahi ana been ka sheegay wuxuu yiri garow hal yimaado ma imaanaysan la fahna uga baqnay soo khudbad qiirale oo xanuun badan oo wuxuu mataqaanaa dhibsanaa iyo wuxuu ka shaki qabo iyo wuxuu diidan yahay soo ma sheegin waxaas inaad idishaan ka cabsan oo inaad isumaysaan ka cabsan oo kuuma imaan karo oo kuuma soo hoyo karo oo madaxweynaha waxa laga rabaa inuu markuu dhageysto inuu uu yiraahdo war Saciid bismillaahir rahmaanir rahiim intaasaa kugu jirta ha barbal ii imaaw koobka shaaha ka kala adiga ku hal tarmuusan ka wada cabayna inta soo fadhiisay waa lagu dilay Soomaa hadii lagu dilay ana ku dilaa qolka igu soo dhagan dego soo deg Saciid muxuu dhahaa markaas habeenkii way u baahanaysan likulkuli u baahana brother meesha xanuun ma jiro umada maxay qaba buufs nooceeda brother kan waalidaas heerkaas gaarsan maxay tahay dani Allah brother Soomaalidu waxay tiri doofaar ma daahirmo si walba dii la yeelo meesha tagayna ka taa Soomaalina saxan u sameeyay arintan uu ku dhagayna asxaan weyn oo Soomaali u sameeyay waa la arkay macna banaanku imaado oo ciiboobay waka mid kale dhaysan ninkan hadii qorshihii ay sheegayso watay oo ahaa waxa waaye hadii shirkaanu baabo hadda oo la isku imaan waaya maya wax la isku imaado wax ka soo bixi waaya dini wuxuu ku noqonaa Saciid waa noqday Puntland uu tagay wuxuu yiri niyad wanaagan xamar ku tagay waadna la socotiin faa'iidana kaba keenin ama dadku maalin walba halkaas laga la socdaa waa u jeedaan Axmed Madoobe waa noqday wuxuu yiri 15 maalmood aan joogay muxuu ahay Nairobi beesha liiraa xamar waxay la hadlay male markii la isku yimidna wax kale faa'iida nimayaha taladeena bal meel hano Puntland waa leedahay anaba haddaan ku sheegay waa sababta aan kaaga soo taariikheeyay waa Xasan Abshir iyo Puntland inteeda yartaa inay san ka kala duminaa wax walba uga muhiimsan haddii xamar sheekadeedu u bigi weyso على الأقل ويران وحلال الباب كان نوصل لابا انت دبيش دبيل حنا سعوتي انت دبيش لنا عن مريسو الله خير الباب كان نو خيره واي markay dabayshu na dhaafto kadib aariyo fiican inuu soo galeysay noo fura hadii kale inta dhirif la tagay waxay dhahay waaba goosan gabarna maanta yaa fashilma madama asiga albaabadu rabo inuu xirto soo hadda uma qalmo asiga in la xiro in daani gudaha macnaha in la seexiyo Soomaha uma qalmo markuu fashilma banaanku imaad Ilaahay waxa waaye in Allah yumhilu la yuhmil macala Ilaahay waxa waa dheereeyaa laakiin wax meel maamo وكو ديريها برادر قطو فرماجن ابو امدان او كراي وحو غراي وحو لا وارمود او امسي او صبر او دلقاتي امدنا عركت اسون دهين هبل واساس هبل هل سو قبت اسون دهين برادر امدي ايغا اركي حدا انا اي شيء انا كو شيغا كو دحay ninkaas warfiya ninkaas waa jaasuus ninkaas waa camiil ninkaas waa anaqaate ninkaas danaha dalkeena dadkeena dalkeena umadeena uma shaqeeyno kama shaqeeyno dana kala wataa marka meesha dhoos masira laga shaqeeyo meeshan masira laga shaqeeyo masira la isku haystaa meesha masir la isku haystaa waxa la isku haystaa mushaar la isku haystaa mushaar dan dal iyo dad wanaag waa Soomaa wanaagna waxa waaye hal wadawliya sida waxa waaye nuur iyo dulumaad u fiirso dulumaad waa jamc nuurna laakiin waa fard marka waxa waa dulumaad macnaha waa mugdi dulmiga waxa waaye uu badan yahay beenta iyo qiyaanada iyo xaasnimadu way badan tahay laakiin xaqa waa hal waa nuur brother jamac ma aha waa fard martaas la soco marka daalimiintu way bateen beentan way badatay marka hadii meesha masiir laga talinayo arinta hadii tahay arin laga talinayo masiir dad iyo dal aan waxa aaminsanahay ma lagu murmeen
mise laba wado ma lagu kala bixin wadadaan raacina wanaag ma wadadaan raacina mise wadadaan raacina maaha laba waa ilaahay muxuu dhahay faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur waxa xaq waa hal laqad jaa'akum alxaqu min rabbikum laqad jaa'akum alxaqu min rabbikum faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur macnaha waxa xaq waday leedahay wada sax waa toosan waa qalqalooc ma laha wada kale lama arko ma sii yeelato marka ilaahay wuxuu ku dhahay wadada saxda waa tan hada kiira waxa qaato ka rabin wuxuu dhahay asay u taala yoo qaadan xurwa hadhowtu xira maalanka ari doona aan maalna jirto in actadna lidaamin naaran xaada bihim saraaduqaha wayastagiithu yugaathu bimaain kalmuhli marka ilaahay waa baraadro marka masiirkan oo labad wado lagu kala baxayo aniga waa fahmi la'ana marka wasiir waarow waxay dhibaato ku tahay masiirkan raba iyo masiirkaad rabto hadduu kala duwan yahay ma isla keenayno waay laakiin maxay tahay ciidamada sa ugu cabsanayso adi xitaa wasiir waarow cabsiga ku hayso ciidamadeen waa ugu fakanaysaay ciidamada ka xun tahay miya ciidamada ka xun tahay ciidamo ay yeelan macnaha haddaan baxo jiima maanta ay yeesho marqwa ka xumaa lahayd waxa leeyahay ninkan iyo asoo caata ogaay soo ku yeesho marqwa dheelad waa ogaa xaasd baa tahay zamanka la joogo dictatoriyad ma shaqaynaysaa raga ma shaqaynayso Ay, sabab- raga anaa ku sheegaa Ay. ragaa waxay isku dayeen taydaa soconayso cabdulaahi yuusuf muxuu ahay maxamed dheere ninka la yihahdo morgan maxamed nuur caliyow raggii oo jabhadaha ahay toodaa soconaysay waa soco weyse aan walaalo waay askari muxuu aad garanayso oo taqaano oo askartaada iyo tayda iyo tiis oo la isku daray aad shaqaynayso moogiye askar aan amad adigu leedahay ama aanan garanayno madaxa u duuban yahay ma shaqaynayso ma shaqaynayso 20 sano kuwii dhashay waa 30 sano kuwii dhashay waa brother kuwa maanta wadankeena oo idinkeedii ka cabsi geliyay kuwa Kenya ka cabsi geliyay oo Dani Axmedow ka cabsi geliyay waaye kuwa konteynarada geliyay waaye kuwa ka keenay wadanka misku halay kari in gudaha lagu jiifiya ka cabsoosa ciidamadeena gacmaha soo gashay kulaha midda la yaaba waxay tahay ciidamadiisa ciidamada arki jira ciidamada isku darsan maxaa meeshan ka dhimiya mise waay askari muxuu aad garanayso oo taqaano oo askartaada iyo tayda iyo tiis oo la isku daray aad shaqaynayso moogiye askar aan amad adigu leedahay ama aanan garanayno madaxa u duuban yahay ma shaqaynayso ma shaqaynayso ku fahansanahay waa kuu jeednaa waana ku naqaanaa meesha kasoo hadlaysidna cadeen ku ah adiga inaad tahay nin camiil oo Kenya u shaqaynaysid waa la arkaa brother adiga ninkan ku agfadhi ku wareysanoy tan kale ninkan waxa waaye aanan wariye ahayn wariye xataa shaqadiis aan aqoon aab ka fiican u malayaab qofka hadalka wado inuu ku raaxismo hadal badan soo waday wuu dhaxgalay waa goys ka dadka saaxib qofka dhameysto waraysiya tiri waraysi waxa brother qofka waa wareysanaysa warka waxba inuu sii daa brother xarga loo jaraa warka inuu sii daa xarga loo jaraa هذا خفك وراح قالوا سابع وراح قالوا سا وكل جونو سا برادر خفك كاغ راح يستوركنا مش وكا دغتay loo qof sheekeysanay ha markino ha maxay tahay waxaan meesha hada sheekay ishahay oo maatay waa ku jeednaa waa ku naqaan oo ku faasanahay waxa tahay mikrofoonkii mucaarabka inaad tahay idaacad wareegto oo shaqeys Cabdiraxmaan Cabshukuuriyo xasan al khayr intii daba socoto oo ku jeednaa marka niyo huwa xaq xaq Soomaaliya waa aragnaa dadkeena oo xaq ah marka dadka indhaha ka xiran way sixirayeen dadka Soomaaliya dadka dad sixirnaatihiin Cabdiraxmaan Cabshukuur iyo dadkan oo wali oo cambaareynayo oo eedeynayo militarigeena haddaad daba socotaan waxyaab la waari xataa wuxuu ku celiyay meesha malis aaminayo meesha is aaminaysa malaha been ma aha aan haddaan ku aqaan inaad tahay laqdaboole aad tahay qaa'in oo aniga wax igu sameeyribtid haddaa ogahay wax igu sameeyribtid saan kugu aaminaa marka adina haddaa tahay qof laqdaboola oo qaa'in ummadda oo la gooyo qof kasta wuxuu malaysa adiga camal inuu yahay marka waa saas waa marka Soomaali waxay tiri inta is aamin waxa kale inta la is aaminin marka iska joog meeshaada mucaaradka Soomaali waa saas midda la yaabana ilaa maskaxdeeda qaad laada waxay tahay dadka mas'uuliyadda Soomaaliyeed markay jagada hayaan xilka hayaan dawladdu wax waa u kufaan oo kacan waa ra'ayga afka hore ah laakiin marka laga qaado dadka koow caynaya ma taqaan wax ka sheegay cambaareynayo waa ayaga marka waa saas dadkan ayaga dhan waxa ku leeyahay siyaasad saaxiib ma laha macnaha waxa ku leeyahay dadka wuxuu barra wala wajiilnimo la wajiil maxaa
munaafiqnimo waxaa marka dadkan dad diin le ma aha saaxiibayaalow. wax badanaa ilaah barinay, ilaah wax badanaan tugnay inuu noo soo diro dad ilaah yaqaan waana haysanaa. marka waxaad leenahay Soomaaliya intii sixran aa u duceyno, intii sixran aa u duceyno. dadka way sixran yihiin waa la haystaaye aa u duceyno bilaahi calaykum. Farmaajo inuu yahay nin sabar badan, dulqaad badan, wax badanna og, wax badan uma tusiyey. taas waa noo caddaat waa aragnay. Farmaajo inta mar kan isugu yeeray oo loo gooy waa aragnay. haddana waa noo caddaat waa aragnay, woona tusiyey dadka laga sugayo talada shacabka inay wax ka gooyaan, inay saameyn ku yeeshaan, inay masiirkooda ka taliyaan. waa aragtay waxay sameeyeen. meeshii looga tali lahaa ummadda way ka tageen, waxay tageen meeshii kale ee taalay dulnimadii ummadda. waa aragtay ayaga xataa markii meeshaas ay taagnaayeen qaabka u taagnaayeen dulnimada ka muuqatay. waxaana ta kow ku ahaa oon caddeynaya ninka laan Saciid Dani qaabka u taagnaa waa arkayseen. marka arrintoodana waa caddahay, waa clear. waxaana aad banaan kusoo dhigay ninka ilaahay mahad salaad ilaahayda ku dhaariyay fiirso, nin siyaasi ah oo waddankeena raw saameyn inuu ku yeesho, oo waddankeena wasiir ka soo noqday, oo xataa jago sare soo qabtay, oo waddankeena shacbiyad badan ku leh. wuxuu ku hadlaya fiiri, weli wuxuu taagan yahay 1990kii 30 sano ka hor meeshii la taagan ilaa hadduu taagan yahay. marka waddankeena dadka taladiisa ka sugoona brother kulligood waa waxaan camal kasoo bilaaw xasan sheekh maxamuud ilaa iyo kan ugu hooseeya uu yahay mahad salaad. kulligood waa saan isku ideolojiya watan, isku caqli waa. Soomaaliya marka danteena shacabka waayo, kuwa masiirka waddanka, kuwa wax loo go'aaminayo waa shacabka, kuwa loo samaysanayo dastuur waa shacabka, kuwa la rabo in la hogaamiyo loo taliyo waa shacab. shacabka marka maxaa loo baahan yahay inuu meeshaas oo ku yeesho saameyn, in aragtidiis meeshaas inuu ka dhiibto. laakiin shacabkeena Soomaaliyeed meeshaas tala kuma laha, waxna kama dhiibtaan. fadhi ku dirra ahaan jirnay iyo BBC London, laakiin hadda ilaahay amarkiisa adduunka horumaray. meelaha abala ku jiri jirnay oo ahaan jirtay BBC ilaahay waa naga saaray. war kasto daqiiqad walba soo dhacaa. warka ugu dambeeyay adin sheegay meeshaan ugu dambeeyay waxay tahay Axmedoobe bilistiyaal oo been badan oo la goomiin waxa ku cadeynayo warkii ka soo baxay, warqadii ka soo baxday Jubbaland oo tiri jagad waxaan ka qaadnay janan 20kii bisha Maarso. beentay sheegayaan fiir, dowlad isku sheega magaceed la yiraahdo Jubbaland 20kii bisha Maarso. bilaahi calaykum marka been iyo marxabaabin iyo qashin munaafiqnimo soo idinku filna halahan 20kii bisha kula fiir ilaahay ku dhaariyay. 20kii bisha hadii ninkaas ay ka buriyeen 20kii bisha maxay soo saari weyseen 20kii bisha maanta meeta wallahi bilaa talaahi ummadda inay sixran yihiin oo lagu ciyaaro meesha ay fadhiyaan 4 wiil oo marqaansan. taasa ku cadeynayso wixii markaas ay rawaan ay maagaan kubutarka taariikhda bedel wasaas Axmedoobe dhow ilmiis wasaas. marka adii hambalyeeno janan, adii hambalay marka janan wadaa soo qabanay oo noo imaad mad gacantan oo soo galay oo Soomaaliya la heshiiyay la soco. Puntland saas camal loo furfur rabaa. marka waxa leeyahay Jubbaland iyo Puntland waxa lahayn ma jiraayo, ninkan waara lahayn beenta sheegayo aan xishoonin. wuxuu ku leeyahay markaan tagay xafiiska prime ministerka telefonkay kula wuxuu soo qabtay wifi ay ku qoran tahay. markii ugu horeysay oo aan xafiiska ra'iisul wasaaraha aan imaado yaa markaan soo galnay qolo oo gaalaha kuli jirta xoogaa waa suweyn. marka wifi-ga wuxuu soo qabanaa moogtahay dadka oo deegaanka ka dhow. nina wifi-giisu wuxuu ku qoran yahay federal deed oo xafiiska prime ministerka waay waxa ugu qoran federal deed. mobilkayga soo qabtay ana waxaan maleynayaa inuu dhihi doono madaxweynaha Soomaaliya aleen saaxiibkaaga ninka xataa wata gaargacanka meeshaas marayay, ninka wata mataqaanaa gaardameerka iyo ninka caasiga saaran iyo ninka orday inay yihiin maxaa ka ogtaa. waxa ku leeyahay baa xafiiska. marka brother federalism dhibkeed waa aragnay, dan nooguma jirto, fikirkeena ma aheen. haddii la burburiyana federalism waa ku farxeenaa alxamdulillah leenahay. federalism waa midkaan dadkan kibirka geliyay oo isku sheegay inuu yahay madaxweyne. marka federalism haddaysan jir lahayn madaxweyne ma la sheegteen. hal madaxweyne ogolanay brother.